sidaas darteed waxaan u gacan haadinaynaa qof walboo Soomaaliyeed inuu iska soo xaadiriyo taliska guud ee waqooyi bari Khalid bin Waliid oo khayrka iyo jannada aan looga habaynin. sidoo kale wiilasha geestiyada ah ee qalasyada waxaanu ku boorinaynaa in ay sidii horeba aan iskaga kaashanay dib u xoreynta deegaanada waqooyi bari in aynu maantana inoo taalo. kooxdii khawaarijta ahayd oo muuqaal ka soo dubtay gudaha magaalada Laascaanood iyo sidoo kale mucaskar weyn oo ay ka fureen sida ay sheegeen duleedka magaalada Laascaanood. muuqaalo la yaab leh ayaa la baahiyay 24kii saac ee la soo dhaafay waliba 11 saac ka hor xilli saq dhaca ayayna soo galiyeen. muuqaaladaasi waxa ay si gooni ah uga hadlayeen Somaliland iyo Puntland waxayna sheegeen in ay waqooyi bari qayb badan oo kamid ah ay haatan gacanta ku hayaan rabaana Puntland iyo Somaliland ay u gudbaan. waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalkaasi iyo sidoo kale xaqiiqooyin ku saabsan dhacdooyinkii iyo muuqaaladii ay baahiyeen dagaalamayaasha kooxda khawaarijta ah oo asbuucan soo laba kacleeyay kadib markii ay dhowr meel qabsadeen qaarna dib looga qabsaday. haddaba muuqaalkan inta aan kula wadaagin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan aad share dhahdin la wadaagto saaxiibada haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biirtid waa mahadsantahay. magaalada Laascaanood 24 saac wax ka yar ayay baahiyeen muuqaal laga soo duubay gudaha magaalada diyaarad banaanka magaalada ku taalo oo caan ay ku taal Laascaanood iyo meel duur ah. 5 nin oo hubeysan oo qori wata wajigana u duuban yahay ayaa iska duubay muuqaal soconaya ku dhawaad 5 daqiiqo oo ay uga hadleen dhowr arrimood oo kala duwan. muuqaalkaasi marka koobaad waxa ay uga hadleen heshiiska Somaliland iyo Yuhuudda, xasuuqa Israa'iil iyo sidoo kale heshiiska Puntland iyo Somaliland. waxa ay sheegeen in Laascaanood iyo sidoo kale waqooyi bariba ay gacanta ku hayaan oo wilaayadoodu ay hoos tagto sidoo kalena ay dhawaan furayaan mucaskar weyn kana codsadeen dadka reer Sool iyo Sanaag inay ku soo biiraan si duulaanada halkaasi ay uga qaadayaan ay garab ugu noqdaan. waa muuqaalkii ugu yaabka badnaa ee soo baxa asbuucan. waxaad xasuusataan in weerar lagu qaaday deegaan hoos taga magaalada Warshiiq oo dagaal xoogan ku dhex maray ciidanka dowladda iyo kooxaha khawaarijta ah. dagaalkaasi waa lagu jabiyay haddana 2 maalin ka hor ayay waxay weerar kula wareegeen magaalada Kudhaa oo iyadana jab xoogan laga gaarsiiyay oo ilaa iyo haatan la aaminsan yahay hal qof inuusan nolol uga baxsan oo xitaa duurka looga tabatagay oo maxaabiistii laga soo furtay. marka maalmahan waxa ay wadeen dadaal waxyaabaha arrinka sii xoojinayana waxaa kamid ah in la sheegay dagaalkii Warshiiq inuu hogaaminayay abwaanigii maalmo ka horna uu muuqaalo soo duubay xilli uu joogay mid kamid ah magaalooyinka gobolka Shabeellada Hoose. waxaa jiray shakiyo ah in gobolka Sanaag ee khawaarijtu ku sugan tahay taas oo haatan shakigu uu soo dhaboobay. waxyaabaha la yaab kale waxay tahay sababta keentay khawaarijtu inay u suuro gasho in magaalada Laascaanood gudaheeda ay muuqaalo ka soo duubaan taaladii shuhadada loogu magac daray oo shuhadada ay u bixiyaan reer Laascaanood diyaaradii dusheeda inay isku soo duubaan iyagoo hubeysan oo dress military wata indhuhuna u xiran yihiin kadibna haddana meel duur ay tagaan waliba si aan ka gambasho lahayn ay u sheegaan in waqooyi bari ay tahay mid hoos tagta wilaayada si ay u sheegeen islaamiga ah ee kooxda khawaarijta ah. haddaba ma rabo waqtiga inaan idinku dheereeyo ee waxaan rabaa inaan ku fasaxo muuqaalka oo dhammaystiran aniga oo ka wareegsanaya in astaamaha ama calaamadaha qaar aan qariyo si uusan saameyn ugu yeelan arrimaha YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ga ee balada daawo muuqaalkan. xagaag dabcan waxaan jeclahay haddii aad muuqaalkan dhammaysatay inaad wax badan ka fahantay xaaladdu iyo meesha ay wax marayaan. magaalada Laascaanood waa meel ku suntan halgan iyo sidoo kale dagaal. sidoo kale 2 sano ee la soo dhaafay Laascaanood waxay ahayd magaalo ku naaloonaysay nabadii iyo dhiigii ay u daadiyeen dhalinyaradeeda kadib markii ay xoog isaga saareen maamulkii Somaliland ee gacanta ku hayay guud ahaan gobolka Sool iyo Sanaag. haddaba maxay kula tahay adiga ahaan muuqaalkan iyo waxyaabaha aadka u haysta baraha bulshada ee aan kula wadaagay iyo sidoo kale in kooxaha khawaarijtu ay sheegtaan inay ku sugan yihiin waqooyi bari doonayaan in Puntland iyo Somaliland ay gacanta ku dhigaan. qaybta commentiga nagula wadaag waxaad ka daawan doontaan muuqaalka oo dhammaystiran qaybteena Telegram-ka hoos ayaana soo dhigi doonaa waa qaybta comment. سهمية الله تبي يهود الله تبي كلنا Somaliland الله تبي
الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس. الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله باليهود والنصارى ذروة سنام الإسلام، به عز المسلمون وانتصروا على عدوهم فربحوا الدنيا والآخرة، وطوبى لمن سار على نهجهم. وأصلي وأسلم على محمد القائل صلى الله عليه وسلم: الجهاد لا يعادل أي من أعمال الأخرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما بعد، maanta way taariikhda hijrigu tahay 4 Shabcaan 1447 oo aanu ku sugannahay mid ka mid ah fadhiisimada maamulka walaayada islaamiga ah ee xarakada al-shabaab ee ay ku leeyihiin duleedka Laascaanood ee waqooyi bari Soomaaliya, annagoo fulinaynaa amarkii ka soo baxay maamulka sare ee walaayada islaamiga ah xarakatu al-shabaab al-mujaahidiin. waxaanu halkan ka cilaaminaynaa dagaal ka dhan ah maamulka riddada ee milcuunka ah ee Somalilan, kaasoo horgol u noqday gaalada nasaarada iyo yuhuudda ee uu ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay. maamulka gooni-goosadka ahi ee xoogga ku haysta shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah, kuwaasoo waddooyinkii u dambeeyey dabaqoodhi u noqday kufaarada salabiyiinta ah ee yuhuudda iyo nasaarada, ay sheegeen inay is-aqoonsadeen. hubaal waxa ah oo uu yahay damaca yuhuuddu in ay sidii ay u dhexal wareejisteen dhulka walaalaheen Falastiin ay ku qaataan dalkeenna qayb ka mid ah sida dekedda iyo eerboodka Berbera, oo ay u hibeeyeen maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo murtadka weyn ee lagu magacaabo Ciro. sidoo kale waxay doonayaan gaalada yuhuudda iyo nasaarada inay dhulka waqooyi galbeed ka dhigtaan saldhigyo ay kaga duulaan dowladaha islaamka ah iyo shacabka muslimiinta Yemen, Suudaan iyo koonfurta Soomaaliya, iyo maamulka waqooyi bari oo intiisa badan ay ka taliso dowladda walaayaadka islaamiga ah ee xarakada al-shabaab al-mujaahidiin. sidaas darteed, waxaan u gacan haadinaynaa qof walba Soomaaliyeed inuu iska soo xaadiriyo taliska guud ee waqooyi bari ee Khaalid bin Waliid, oo khayrka iyo jannada aan looga horreynin. sidoo kale, wiilasha geestiyada ah ee qalasyada waxaanu ku boorinaynaa in ay sidii horeba aan iskaga kaashannay dib u xoreynta deegaanada waqooyi bari, in aynu maantana inoo taallo si wada jir ah inaynu kaga xoreyno nidaamka riddada ah ee xoogga ku haysta deegaanada waqooyi galbeed Soomaaliya, iyaga iyo kufaarta ay dabadhilifka u yihiin ee yuhuudda nasaarada. ugu dambayn, waxaan halkan digniin kama dambays ah uga diraynaa maamulka riddada ah ee Hargeysa inay ka noqdaan heshiisyada ay yuhuudda ay la galeen iyo qaadashada diinka cusub ee lagu sheegay Abraham Code. hadday taasi dhici weydo, waxaanu ballan inoo ah in aanu insha allahu waqti aan fogeyn idinku soo qaadi doonno dagaallo qorshaysan oo nafhur ah oo aad ku hooban doontaan. ciidamka Allah Berbera iyo Hargeysa fadhiisimo uma noqon doonaan dhul islaamka ay gaaladu kaga duusho islaamka, ee wuxuu noqon doonaa siday ahaan jirtay dhul Soomaaliyeed oo gaalada yuhuudda lagaga duulo. waxaan halkan diyaar ugu nahay kumanaan wiil oo Soomaaliyeed inay naftood u huraan oo xujirtooda u daadin doonaan hadduu eebba raalli